السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالمهن واحد سعودي هاين كسابسن هيبصع وسيابك لقيتسن صباحي برخد جامع بطولنا فيك حزب وطني بقى كهذه المناسبات وحشين مال إيري وهيبصع كل ميت عاد هالجيسة جامعتي بكجوابتي waxa kale oo barxad u yiri jaamacada hadii laga tago anigoon macallin magacaabin madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bixi Cabdi ayaa lahaa midgaankii yaraa halkan iga soo caayay oo aan soo xili karo isagoo dhalinyaro kula shiraya magaalada Boorama waxa sii dheereyd in macallin ka soo jeeda beelaha la haybsooca uu ka hadlay Boorama oo wili shaqadii baa la igu diiday reerkaan waxa soo dhamay حردرين بيه هاينية على معلومات هل كان وحن كوهيا منهجك أفكار سوماليا الدكتور السريع سومالي لان قارهانا فصل كأفراد وطبعا عادي صوب حي لبضا كون يلي هي تونك إيو مركي تفتير كالبوسميي لبضا كون يلا واتاك لبضا منهجك وحا كاملا قبل لوغو تلقي لو تري أبوان حسن تربي حسن تربي قبل دي شاس وحو كغا شيكينيا قيمها جيرا markuu soo gudbo qofka cayda ah inuu ka hadlo ayuu wuxuu meeliska 13aad leeyahay bahlan dhaqanin sida boonta waa la iska buriyaa dadka aan geela dhaqanin waa la eriyaa oo waa la caydiyaa sida boonta oo kale wax qiimaana ma laha haddii uu qofku geel waayo wuxuu la qiimo noqonayaa boonta haddaba ereyga boon waa maxay wax jira ereyo fara badan oo loo isticmaalo dadka la takooro ama la faquuqo ama la haybsoocee lagu gafayo sab baa ka mid ah midgaan baa ka mid ah boon baa ka mid ah ereyga boon waa erey laga isticmaalo koonfurta oo tusaale ahaan marka haddii la yidhaahdo hebel habartiis boon waaye waxaa loo jeedaa hooyadii waa midgaan haddii la yiraahdo hebel boon waaye waa midgaan si allaala si kale oo loo fasiri karo ereygaas boon oo aan ahayn inuu yahay beelaha la haybsooco waa ma jirto cid ay wala doodaysa ha soo fadhiisato waxaan darahay in maalin walba arday kastoo Soomaaliland ku jira fasalka afraad sanadkaas loo dhigay 10kaas macallin kastoo afka Soomaaliga dhigaana uu dhigayo dadkii buugta qorayay 2016 iskama xil saarin waxaana xilligaas inta badan gacanta ku hayay nin la yiraahdo Maxamed Xilbedel oo bariga uu tolada arkisay isagoo qoray ku dhaleecaynay in Said Maxamed Abdullah Xasan ama cid kale ay wax ka sheegeen waayaan daro in buugan uu qaybta ka ahaa ay ku soo baxay taas markii dambana waxa tiftirkii sameeyay Abaan Xasan Maxamed Qaliile oo isagana aan ku ixtiraamayo da'da iyo aragnimada iyo macallinimada waayahay bariga hore marka uu gabay qabyaalada soo galo manhajka su'aalahan waxa la oran jiray gabay ah wacdiga hertiriyay in gaar xilata ama guudka gabiga Soomaali naagi hay gidiga ciida galagaanka habariyoonis waa tangayaan dumarkuna cilmi gubantiye waa laga bod jiray meeriskaas naagi hay gidiga ciida galagaanka habariyoonis gabayga rag uu kibir waa lagu faa Ismaaciil militariyay marka la marayo tuduca kadabkii wuxuu go'ay markuu kaday ragiisii waxay ahayd kadabkii wuxuu go'ay markuu kariye reer khayr oo waxa la leeyahay sayidka ayaa tiidii mala xilladii dambe ku soo jeestay waxa loo bedelay kadabkii wuxuu go'ay markuu kaday ragiisii marnaba lagama fikirin saamaynta ay yeelan karto in bulsho marka horeba takoornay oo diin aan ku takoornay ee falxumo ku takoornay in haddana manhajkii lagu sii daro oo la yiraahdo sida boonta loo buriyo qofka bilaageel ahna waa loo buriyo wuxuu inagu jeedinaya faquuq iyo takoor iyo nacayfiyo wax aanigeen inna akramakum indallahi atqaakum anigu kole qof ahaan macallin baan hashuugaanta ka dhigay dugsiga sare gabaygaas haddii wax laga bedelo iyo haddii aan laga bedelinba aniga maanta ayay igu dambaysaa wasaaradda waxbarashada waxaan ugu baaqayaa in ay wax ka qabato dhanka kale waxaan leeyahay boqor Axmed iyo Suldaan Daakir iyo afayeen barkhadooda anagoo in barbar taagan waa inay dhamaanteen u hawl gallo sidii gabaygaas
loo sixi lahaa waa yandara kale oo dul hoganaysa manhajkii jamhuuriyadda Soomaaliland oo halkii ummadda la isaga soo dhaweyn lahaa baad moodaa in la sii kala fogeynayo meeshka gabayga ah ee ku jiraan waxa weeye bahlaan dhaqanin sida boonta waa la iska buriyaa bahlaan dhaqanin sida boonta waa la iska buriyaa dadka aan geel lahayn sida midgaha loo eriyo ayaa loo eriyaa waa leeyna leeyahay. Assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.